ما شاء الله. waa galab degan oo ay qorraxdu hoos u sii dhacayso waxaan u ambabaxay galbeedka magaalada Hargeysa anigoo ujeedkaygu yahay inaan booqdo xero geel oo si casri ah loogu dhaqo geela isla markaana ku taalla galbeedka magaalada Hargeysa. waa xero tayada geela nadaafadiisa iyo dhaqankiisaba aad loo ilaaliyey isla markaana caanaha geela laga liso loo iibgeeyo suuqyada magaalada Hargeysa. waa xero ku taalla buurta Malowle ee ku taalla galbeedka magaalada Hargeysa waxay in yar uun xagga koonfureed ka xigtaa barta kantarool ee galbeedka magaalada Hargeysa laga soo galo. socod yaroo gaaban kadib iyo jawi aad u qurxoon waxaan gaadhay xerada geela waxaanan ku arkay muuqaalkan quruxda badan ee halkan iga daawanayso. Flowers music. isla iyo markii aan xerada soo galay waxaa markiiba i soo jiitay ololka geela iyo yuuska nirgaha oo isla markaa la godlayo. codka iyo sanqadha dhiilka caanaha lagu lisayo uduga iyo carafta geela ka soo uraysa ayaa markiiba ah mid ku soo jiidanaysa isla markaana qalbigaaga ka dhigaysa mid raxmadi ku soo degayso. nimanka lisaya geela waa kuwa haya shaqo adag isla markaana ku feegan sidii ay dhammaan geela u wada lisi lahaayeen. shaqadanna waa shaqo si maalinla maalin walba halkan uga dhacda. marka dhammaan la wada liso geela caanaha waxaa loo diyaarinayaa gaadiidka qaadaya si ay u gaadhsiiyaan suuqyada magaalada Hargeysa isla markaana halkaasi loogu wada iibiyo. waxaa warbixin kooban iga siiyey Khaliif Xasan oo ah mulkiilaha geela isla markaana ii sheegay in geela loo dhaqo si casri ah oo uu kaga raystay daaqii dheeraa uu dhulka mari jiray daalkii faraha badnaa iyo shilintii iyo dulankii qiimaha ku soo cuni jiray. khaliif waa mulkiilaha geelan isla markaana waa ninka geela halkan keenay bal warbixin yaroo kooban ayuu naga siinaya geelan. khaliifo geelan ujeedada ugu weyn halkan u keentay maxay tahay? sidoo geelan ujeedada halkan aan u keenay waxa weeyaan waa ganacsi aan u keenay. haye geelan caanihiisa magaalada Hargeysa la geeyaa waqooyiga wuxuu degan yahay galbeedka magaalada Hargeysa meelaha Malowle xaafadda Malowle la yiraahdo degan yahay. marka geelan waxaan u keenay ganacsi aan u keenay inaan caanihiisa magaalada geeyno. marka geelan markii hore wuxuu joogi jiray hawdkaas joogi jiray waxa geel la raaco oo sharaf mooyaan aan wax manaafacaad oo kale lahayn oo deena iskaga faato oo tiraahdo geel baan leeyahay ama wixii martiya timaada habeenka ku soo hooyata aad ka marti soorto uu booha sidoo kale faana uu ahaa oo geel waxyaabaha Soomaalidu ay ugu jeceshahay buu ahaa marka geelagu cabayo kale ama lagu dhageelayo geelagu intaas u gaaray waxaad meelaha kaga faanto wuxuu ahaa yani aad u wanaagsan imikada qudheeda waa kii oo aad sida u jeceshahay oo faankii ku jiro haddana aad ganacsi sii gelisay. marka waxa ugu wanaagsan waxa laga shaqeeyo waxa ugu wanaagsan waxaad jeceshahay oo ka ganacsataa ugu wanaagsan. marka geelan waxaan ka keenay hawd baan ka keenay geelan waa geel badan waa intii irmaanka ahayd horweenkii wuxuu joogaa ama geeli gaanaha wuxuu joogaa hawdkii wuxuu joogaa. marka geel halkan aan keenay alxamdulillah wallahi manaafacaad badan buu leeyahay. markii hore waxa laga yaabaa geela isagoo kadina ama 100 neef in milixdiisa la iibiyo oo inanka geela daryeelaya kabiisa laga loo iibiyo oo ari loo iibiyo. imika sidoo ka duwan yahay geeli oo
wuxuu ka duwan yahay geelii isagii baa lacag sameynaya dhaqaale sameynaya marka caanaha magaalada Hargeysa geeyna alxamdulillah rabbil caalamiin da sidii imka aad buu wanaagsan waa geel tababaran buu noqday geel nafisa buu noqday geel wuxuu noqday laylyamay buu noqday kana qurux badan geelii hawdka la raacayo la iska daba socday sanadkii laga yaabaa inay qaar tabiyaan marka awrka lagu daro geel wax laga yaabaa inay ribi jirin imika haddana awrka geela soo dar hal lagama yaabo in hal tabsanaato laga yaabo geelaas waa wada rimaya marka hadda waxa sheegaysa waxa masaafadii badnayd uu ka raysay iska socday walow marka la eego isaga de uu laandheer ahaa marka hawdka joogay oo geel iska socda oo haayo aan xorriyad laga qaadin marka alxamdulillah isbarbardhiga hadda xaggan iyo marka la eego halkii aad iyo aad weyn ayuu uga wanaagsan yahay alxamdulillah idigoo aqoonta imika dunida taalle ee xoolaha sidii Soomaalidii hore ay u dhaqan jirtay iyo imika sida loo dhaqayaa ay kala duwan tahay oo geelal badan oo magaalada Hargeysa agteeda ku xarooda sida dunida casriga ah looga dhaqo imika si la mid ah looga dhaqo geelan imika aad halkan keentay markii aad keentay imika muxuu ku kala duwan yahay wada oran kartaa tiigsimadii aad oran kartaa uu kaga raystay ma shirintii buu ka raystay ma daaqii dheeraa buu ka raystay muxuu ka raystay imika uu hawdkii halkan uu ku kala duwan yahay aad iyo aad u kala duwan yihiin geelan waxyaabaha kaga raystay waxa ka mid ah masaafo socon jiray biyaha wuxuu qadi jiray tusaale ahaan biyuhu kale wuxuu qadi jiray dhowr iyo 10 minuut laga yaaba iyo hadda ilaa biyaha afka kama qaado xoolaha Soomaalida waxa qaariye ama waxa laga yaaba ama hilibka uu diiday waxa weeye waxa ka mid ah ama caanaha aanay ugu hirin waa biyihii muddada inay fiix dheeraanayo marka waxyaabo fara badan socodkii uu iska soconayay uu ka raysay geelaas dawaa kama fogaado marka la isbarbarga lagu sameeyo shaqo isma laha صح weeye hashan imika la godlay magaceed hashan waxaa marka baalayaa marka aad iyo aad u qiimo badan ما شاء الله waxay ka mid tahay geela ugu sareeya ama lambar 1 ka ay ku jirtaa hay maxay kaga duwan tahay geela kale wallahi geela kale wax kaga duwan tahay caanay kaga duwan tahay ka caana badan tahay wanda shaqoodaya markabku sidoo xaaji gaariyaashu ugu qaad badan yahay ya ayaduna geela ugu caana badan tahay maxaa tiri sidoo gaadiidka kale markabka kale wax looga magaca loogu bixiyay sidoo gaadiidka kale ugu qaad weyn yahay ayaduna geela ugu caana badan tahay hashani hay caanaha laga lisa geelan ayaa waxay gaadhaan boqolaal qoys oo ku nool magaalada Hargeysa iyo boqolaal meeradood taasina waxay ku tusaysaa inuu geelu yahay lafdhabarta dhaqaale ee nolosha reer miyiga isla markaana isku xidhaysa miyiga iyo magaalada khaliif waa ninka hantiilaha geelan la weeyaan geela gufiduu ka guraya khaliifa maxaa ka guraysaa geela yar ka soo dhaxbaxay haye marka geela hurdada ka xumaanaysa ama fadhiga ka xumaanaya haye waxa si fiican u seexdo ha kuna fasal ka guraya waxyaabaha yar xirada ka soo dhaxbaxay haye marka waa sida naftooda kala laga soo qaada neefka qolkaaga hurdada kale qolkaaga hurdada wax ka yaalan weeyaan haye waxyaabaha ka guraya xirada si ay u sinaato galabta roob badan baa da'aya onkad badan iyo hilaac badan baa halkan saad ka arkaysa wallahi waa igad buu shaqaa igad haye kowdii haye ma sidig aan saygan sidig buu shaqaa sidig waa sidig buu shaqaa waxa kurska inta leeyahay soo arkay kursku dheeraaday heestii waxa ka muuqda jiray xasan ganay muxuu yiri heestii maxay ahayd igad maqaar lagu salaaxay oo saameyshay gaawaha oo saameyshay gaawaha haye igad wax markaa waxa dhacay waa sidig hashan baa dhashay hooyadii hashanna waa lagu falay haye qasabal buu gelisay haye hashaasaa dhashay marka hashaasaa dhashay qurba taa uu dhakada ka cunayo hashan oo sii jeedo fadhida ha ayaa ilmihii ka dhintay haye kana ilmaha yar baa lagu guuleysay haye waxa lagu guuleysay qasab baa lagu guuleysay haye waa qalax xaleeyaa qalax qalax muxuu yahay qalax wuxuu yahay afka iyo sanka ha xagga dambe iyo sanka ha ayaa qori laga gelinaya dadna naqaska lagu dhajinaya haye dadna ilmihii baa lagu agxirayaa ma geed lagu xirayaa khasab bay ku ogolaan meel cidlo ah meel loo dhigaya haye dadna waa lagu soo gamara gudinaya gamara gudin wuxuu yahay bahar oo kale ama marooyin iyo wax la tuurtuuraya dadna hashaas ilmaha way ogolaanaysaa haye markii naftu u yaabtay ilaa waa abuur Allah way waa ilaahay baa sakhray haye yaa waa sakhra Allah معاتي هاش لبدا هلاد ee uu dhirku wada jaqo isku nuuga maxaa la yiraahdaa
sidig baa la yidhaahdaa ilmu ka dhintay la salaaxana dhigar ma la dhahaa dhigar ta marka keligeed nirig bilaa nirig ay tahay markuu nirig kale la shaqana maxaa la yahaa wax sidig waa sidig wadan kale wadaagad wax kale kuma garatid hash magac xumaan hash magac ma ka badashaan wari waa wax oogay halka bay soo dhaweeyay Muskala baareen Okay, kayo. هاشم حسب لولي سامح لولي هاشم وتوجو توجو ليه توجو نلا مالا هداد ماذا مقشو هاشم وكله نله أيام مالا حوق يفرسم لكم مالا توجو نلا مالا saaxiibayaal muuqaal kooban oo aad ka daawanayseen xerada geela ee maanta magaalada Hargeysa galbeedkeeda ku taala intaasaan kusoo gabagabeynaa roob badan oo soo daatay geela sadaka ka arkitaan baabuur badan ayaa caano soo doonatay waliba maalmaha jimcaana way ka sii duwan tahay maalmaha kale oo dadku fasaxa waxay jecel yihiin inay magaalada dibadda uga baxaan isla markaana ay hawada iyo leedha soo qaataan muuqaalo qurux badan ayaad halka kala socon doontaan youtube-keena cadceed vlogsna kor baynu soo qaadi doonaa insha allah haddii ilaahay ka dhigo ka faa'iidaysi wanaagsan imikana xagga nirgaan kusoo gabagabeynayna